cilmi baaristan ayaa in mudahaba waxa ay ka socotay dalkan Yemen gaar ahaan magaalada Sanca oo ay markaasi sameynayeen dhaqaatiir Soomaali ah ayaa waxa ay gaartay halkii ugu sareysay uguna weyneyd marka loo eego daawooyinka cajiibka oo ay soo saareen kuwaasi oo markaasi lagula dagaalamayo laguna daweynayo cudurro halis ah oo caalamka u caalwaayay daaweyntooda daawooyinka uu dhakhtarkani Soomaaliyeed uu ilaa iyo haatan soo saaray ayaa waxaa ka mid ah daawooyinka cudurrada kansarka, AIDS-ka, sonkorta, cagaarshowga ama jaundice-ka ama waxa loo yaqaan hepatitis-ka iyo kuwa kale oo iyagu markaasi baabi'iyay dadweynaha caalamka. daawooyinkan ayaa waxaa lagu magacaabaa cajaa'ib waxaana daaha ka rogay Dr. Maxamed Cabdiraxmaan oo markaasi loo yaqaano Dr. Cajaa'ib. kadib ilaa 99kii ayaa waxaan bilaabay cilmi baaristan oo aan ku hawlanaa 99kii iyo ilaa iyo hadda. marka ilaa hadda cilmi baaristan wixii natiijo oo ama guulaha laga gaaray ayaa waxay tahay inaan daawooyin u soo saaro 90% cudurrada dunida. haddaba gadaal waxaan ka ikhtiraacay dhawaan muddo imika laga joogo 2 sano iyo 3 sano ku sii dhadhow meelaha daawadan chemicalka yani chemical marka la leeyahay waa chemical pharmacology ama daawooyinka chemicalka ka samaysan oo maadooyinka iskaga jiraan ay yihiin chemical. marka daawadan ayaa waxay wax weyn ka bedeshay nidaamkii cilmi baarista waxaana siisay awood buuxda يعني إن علم بارستاني أي تهاي تهدد الدنيا وجه هرمرسن طبعاً. دكتور عجائب هي وحى كلا وشيء إن لقى جود بي أو شيء كهري أي نقطة حنونا ضدك عالم كداش ذي سيدا أيديسكا كانسركا سونكورتا عقارشوجا أما جونديسكا تيفوجا يولي با حنونا كلام. بل واحد يجور أنتها حنون كان محيط ومارت كانسركا أو دلودي. عالم كان أكون والله كان عباتي ومد بدنا الدنيا كنون مرك أنا كانسر كسدابة محيط داودان سدابة يقول تخلص إنسان كانسر كنوع عطونها هذا إما كانسر هذا داودان وكلا لقوا استعماله وحكم إذا كان عناه وحكم إذا كان المجرانك وحكم إذا ما هذا كان يدونا علاش كانسر هذا بحويا ما عطونا بها هذا داودان واحد كودي لسه صدق شو مثلاً تدكي مركي كوي مادان والدودي أعطيسو وحويا واحد دريمي صدح الشح حنون مالين كأفرادنا وفضيت معناته هالكاس وكلنت لكن دودي وحلا سيسيني أفرتن عشوا سيداس أيان تدكي أي فقاتين يجو مركا إسباردين أو أي تجين دكتور ردي حتى أي كلسوني يجو أي ربان ساسي فقاتين نيجاتيف كودي أي فقاتين أو باردتان كودي نيجاتيف الصباح وحويا واحد كان سريرة دوني دولة جود بي تد بدن وين مكان الصوماليين نو يكون في عنادين وارد تقدر تكوي إيمان ينو يستوين يندنو هذي قدان ين ماشي دوني كلا تجي ينتد أن أجينو ويشران داودن أيديسك مركا للسيو waxaa la siinayaa 8 saac hal mar dawadan shaqadeedu waa 8 saac ay jirka ku jiraysaa 8 saac marka la 3 marka la siiyo min 8 saac hal mar la siiyo waxay noqonaysaa 9 goor 9 ka goor marka 3 cisho qofku wuxuu dareemayaa xanuun ayuu dareemayaa wuxuu dareemayaa kala sidii matag soo qabanayo oo kale qofku markuu AIDS leeyahay xanuun kastaaba habka loo dareemo 3 cisho hore way kala duwan tahay kadib maalin afraadka qofku wuxuu ka dareemayaa galbada garab ayuu culays ka dareemayaa waa qof kasto la AIDS marka aynu ka hadlayno wax weeyaan AIDS marka leena waa cudurkii marka HIV leenahayna waa fayraska jirka ku jiro wali heer cudur gaadhin ama qofku ha ogaado ama yuu ogaan marka qofku markuu fayraskani ku jiro ama AIDS ha noqdo ama yuu noqonin wuxuu ka dareemayaa maalinka afraad labada garab culays maalin afraadna fudeed buu noqonayaa marka macnaheedu wuu wada dhintay marka 40 cisho ayuu qofku dawo qaadanaya 40 cisho markuu joogo 20 cisho soo joogaya markaas uu tagaya shaybaarka kadibna saas negative ka qaadanaya ilaa hadda tijaabada aan sameynay waxa weeyaan dadkii isticmaalay dawadan AIDS-ka lahaa way rumaysan waayeen runtii maalin afraadkii ma dareemaya xanuun macnaheedu dadka caafimaadka qaban ku jira sidoo kale waxaan guryahooda ku booqanay dad markaasi qabay xanuuno kala duwan oo markii dambe laga daweeyay oo ay ka mid yihiin dad markaasi qabay xanuunka dhaliyo viruska HIV AIDS cagaarshowga ama hepatitis-ka iyo waliba tifowga iyo xanuuno kale horta xanuunka si saa'id u yahay haddii si saa'id yahay daawadan aan bilaabay 3 beri daawada cunayay 3 beri markaan daawada cunayay maalinka afraad marka xanuun iyo maxaan dareemay xanuun
markii maalinkii shanaadna alxamdulilah waan fiicnaaday waayo haddii oo xanuunkii hore aan arkay inaan ka caafimaaday oon kasoo roonaanay sidii horeta niyaddii iyo xumayd iyo dhibkii hore aan qabay waan ka fiicnaaday horta oo niyaddeedii saafiyey noqon maalinkii shanaadna caafimaad baan dareemay alxamdulilah hurdadii cuntadii aan cuni jirin adi korkii ololaayay wixii dhan waan ka fiicnaaday waan dhihi karaa dadkii dhahayay jiradaanaad ruuxii ku dhacda waa khalaas uu dhimanayaa inuu hadda fayraskii dadka hayay inuu maanta dawadiisii la helay oo dawadiisii maanta diyaar ay tahay oo ruuxii ku dhaca ka dawoobayo daaqadaydiiska ka baxa daawooyinka hore sidii dhakhtarku igu yiraahdo isticmaal baan isticmaal jiray haddana mar kasta meeshiisa buu kusoo noqon jiray mar 450 mar 350 mar 500 oo wax yar laabuu noqon jiray ama 480 oo kale haddana wuu igu soo noqday laakiin hadda alxamdulilah waan fiicanahay aad baan fiicanahay waxyaalihii dhibi jiray oo dhan markaan cuno waxba kuma noqdo alxamdulilah xanuunkan igu dhacay muddo 7 sano ka hor aniga oo meel taama joogo meel maartay xeebta soo yimanta ka mid ah waxaa igu beeray adigu waxa igu beertay baasha la yiraahdo kaneecada ayaan ka qaaday marka muddo 7 sano ayaan la daala dhacay marba uu igu soo kacay markaan mar iska daweeyaba igu soo kacay marka ka bacdi waxaan helay ninkan doctor Ajaayib ayaa dawadan siiyay muddo 7 bilood ka hor waan ku fiicnaaday oo aad iyo aad baan u ladnaaday oo waan fiicnaaday arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa guushii ugu horeysay uguna baaxadda weyneyd ee dhanka dawooyinka oo markaasi ay gaaraan Soomaalida guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan dalkan Yemen. Maxamed Cali Juuxa, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cadan, dalka Yemen.